maamulka golaha deegaanka degmada Burco ee horkacayaan xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Ismaan Sheekh Maxamed Ismaan Nuur iyo xildhibaan Mubarak Yuusuf Cilmi Bidhi ayaa gab loogu talagalay fayadhowrka iyo nadaafadda kala wareegay ururka maxalliga ah ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee Hiil Caafimaad munaasabadda la wareegista qalabkan iyo agabkan loogu talagalay faraxalashada oo qayb ka ah wacyigelinta lagaga hortagayo caabuqsidaha cudurka halista badan ee coronavirus ayaa ka dhacday xarunta dawladda hoose ee degmada Burco awa kuwan dhalinyarada ku deeqday agabkan ee ururka wadaniga Hiil Caafimaad oo ka warbixinaya muhiimadda ay u leedahay agabkan wacyigelinta bulshada bismillaahir rahmaanir rahiim kulli saaka waxaan wareejinaynaa qaybtii faraxalka ee labaad halkaas oo ay iska kaashanayeen ururka horumarinta caafimaadka ee Hiil Caafimaad iyo dawladda hoose saaka sidaad ka warqabtaanba muddo fara badan waxaan ku soo jirnay ka hortagga COVID-19 annaga oo mar waliba u taagan inaan la shaqeyno dawladdeeda waliba gaar ahaan dawladda hoose oo waliba marar badan aan iska caawinay sidii aan uga hortagi lahayn xanuunkaas ama aan dadka uga wacyigelin lahayn dawladda hoose iyo ururka horumarinta caafimaadka hal mid ah waxay fariin u wada dirayaan islaan kasta inan kasta gabadh kasta sariibada galsi waxa ku waashiba inay farxalato waayo haddayna farxalan xaafad kasta xanuunku gaari karaya dhanka kale waa kuwan xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Ismaan Sheekh Maxamed Ismaan Nuur iyo xildhibaan Mubarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo uga mahad celinaya dhalinyarada isxilqaantay ee Hiil Caafimaad iyo kaalinta ay kaga jiraan wacyigelinta bulshada ee dhinaca ka hortagga caabuqsidaha COVID-19 waxaan runtii halkan garabkayga taagan dhalinyartan labisan idriiskoodii ku labisan ee magacoodii ku labisan ee la ururka Hiil Caafimaad in muddaaba imika way nala shaqaynayeen aad iyo aad bay mahadsan yihiin waxay mudan yihiin ku dayasho bani aadamku had iyo jeer wuxuu sameeyaa tadawurka wanaagsan ee uu sameeyana in wixii wanaagsan la iskaga daydaa waa daruuri waxaanu sheegaynaa oo aanu ku celcelinaynaa ururka dadka isu ururaya koow ka ah fiditaanka xanuunkan ilaa iyo imikana cid fulishay oo magaalada Burco ka muuqata ma jirto halkii qaadka waa la saddex yaacaya marfishadii baa la saddex fadhiya maqaaxiyihii baa la saddex fadhiya madax la iswada geliyay hudheeladii waa ka daalig marka dadkayga wanaagsan waxaan ku wacyigelinaynaa ururka faraha badan soo sheegay in la joojiyo xanuunkan inaan alert ka wada qaadano ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu aan ku bariyo meel beersan isdhig waxaan halkan kala wareegaynaa ururka caafimaadka Hiil Caafimaad oo niman dhalinyaro oo reer Burco ay asaaseen waqtigii ku haboonaa waxa soo gabagaboobay hadda oo imika ay barnaamijkeenu ururka caafimaadka Hiil Caafimaad iyo golaha deegaanka ama dawladda hoose Burco ay ka wada shaqeynayeen oo wada jiro ka shaqeynay ayaa soo gabagabay sida xoogii sheegalka waxa ku aragtay in lagu wareejiyay 9 haamood oo aan ugu talagalnay goobaha dadku badan oo muhiimka ah sida dhakhtarka iyo sayladda iyo sariibadaha iyo meelaha istaamada waana annagana ugu horeynay dalka barnaamijkan farxalo ugu dambeyntii agabkan oo loogu talagalay in la dhigo goobaha ay dadku ku badan yihiin sida sariibadaha istaamada suuqyada ganacsiga iyo sayladda Burco oo ah goobaha isugu yimaadaan bulsho aad u tiro badan ayaa la geeyay agabkani iyadoo bulshadana ka wacyigelinaya xildhibaan Mubarak Bidhi si looga feejignaado cudurrada safmareenka ah ee uu ka midka yahay COVID-19 Cabdi Samed Axmed Yuusuf telefishinka caalamiga Universal magaalada Burco